بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحان maanta soo bandhigay musharax ra'iisul wasaare iyadoo taariikh nololeedkii waxbarashadayda aan CV aan soo diray. waxaan codsanayaa in aan ka mid noqdo dadka u tartamaya ra'iisul wasaaraha dalka. siyaasadda nin walba maalin buu soo galaa, marka waxaan codsanayaa madaxweynaha Farmaajo inuu codsiga fiiriyo. weli waxaan jeclaan lahaa in ra'iisul wasaaraha muddada gaaban ee dhiman aad looga fiirsado oo aan lagu degdegin. nin samata bixin kara ummadda Soomaaliyeed, gaarsiin kara doorasho nin iyo cod ah, iyadoo meeshaas ay ka baxayso 4.5kii wixii la dhihi jiray iyo nidaamkii laaluushka ahaa ee xildhibaanada iyo ay kusoo bixi jireen. cod nin iyo cod iyo qof kasta oo Soomaaliya inuu codkiisa dhiiban karo. waxaan ballan qaadayaa oon awood u leeyahay inaan ka samata bixin karo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka hadda haysta. axzaab siyaasi ah ay u gudubto doorasho nin iyo cod la gaarsiiyo. awoodda ummaddana ee awood u leedahay Soomaalida waa dad karti badan, aqoon-yahankooda iyo dadkooda wanaagsan haddii la xulo in si degdeg ah ay u gaari karaan horumar geeska Afrika ay ka noqon karaan dowladdii koowaad. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ballan qaadayaa inaan awood u leeyahay inaan ka baxo jagadaasi wasiirka koowaad. waxaan ka codsanayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo inuu codsigaasi fiiriyo, dib u fiiriyo, CV-ga u fiiriyo. anigoo weli jeclaan lahaa in codka ummadda dadka la talageliyo dadka Soomaaliyeed qofka ay qaadanayaan ra'iisul wasaaraha inta aan la gaarin madaxweynaha lagu tijaabiyo hadeerba ninka ay qaadanayaan in cod la geliyo ayaan codsanayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن waxaa sheegtay inaad doonayso musharaxa ra'iisul wasaaraha dalka. inta badan marka uu madaxweynaha soo saaray ra'iisul wasaaraha waxaa imaado khilaaf kala dhaxeeya. madaxweynahana wuxuu doonayaa ra'iisul wasaare dalka ka samata bixiya xaaladahan kala guurka ah, wuxuuna rabaa in la gaaro qof iyo cod. waxaana ku adkaysanaysaa inaad gaarsiin doonto. Soomaalida inta badan marka xilka loo magacaabo waa ay ka seexdaan. haddii tusaale aan xilkaas lagu magacaabo maxaa kuu qorshaysan? waxaa ii qorshaysan sida ra'iisul wasaaraha wuxuu fuliyaa siyaasadda madaxweynaha. waxaa ii qorshaysan siyaasadda madaxweynaha iyo cod iyo qof in aan gaarsiiyo in ummadda Soomaaliyeed aan u ballan qaadayaa inaan khilaaf iyo sidii ay u soo wada shaqeeyeen xasan cali khayre 3 sano in si ka fiican inaan ula shaqeyn doono. isleedahay wadanka maadaama hadda xaalad kala guur lagu jiro, haddii ra'iisul wasaare tusaale ahaan lagu magacaabo inaad ka gudbi kartid iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in xaalada kala guur ah uu wadanku jiro. kala guurka macnihiisu maaha buuq iyo dagaal. kala guurku waa macnihiisu wuxuu yahay waxaa laga guurayaa nidaamkan ahaa doorasho dadban. waxaa loo guurayaa nidaam muxuu ahaa doorasho nin iyo cod ah. xasan sheekh wuxuu sameeyey nidaamka dadban. dowladdana waa inay ka guurtaa nidaam dadban, doorasho dadban ee u guurtaa doorasho nin iyo cod ah. marka waxaa isleeyahay waa la gaarsiin karaa, waqtina waa loo hayaa. ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed maxaa leedahay? bulshada Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa in aan ka samata bixin doono ilaahay hadduu yiraahdo. waa waxyaabaha khilaafaadka yaroo jiro, inkastoo khilaafaadka badi ay dhammaadeen, dadkina ay noqdeen dad dantooda gartay ay u badan yihiin maanta oo sidii hore aan loo qaldi karin. waagii dagaal ogayaashii oo been lagu dagaalgelin jiray maanta way ka gudbeen ummadda Soomaaliyeed oo nin walba wuxuu garanayaa dantiisa iyo
ubadkiisa iyo waddankiisa sidaa darteed waxaan u malaynaa in dadka ay gacan buuxda aan ka heli doono